dilkii wariyihii Sacuudiga ee lagu dilay qunsuliyadooda magaalada Istanbul ee dalka Turkigu wuxuu gilgilay xiriirkii caalamiga ah ee Sacuudiga u lahaa dunida inteeda kale waxaana uu dilkaasi walaac weyn geliyay xiriirkii siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda Afrika ay la waday boqortooyadaasi inkastoo la qabtay shirweynihii maalgashiga ee magaalada Riyadh haddana waxaa jirtay inay qaadaceen hay'adihii waaweynaa ee caalamka ee dhinacyada maaliyadda iyo warbaahintu sida bangiyadii waaweynaa shirkadihii ganacsi ee ugu caansanaa qaarkood iyo warbaahintii hormuudka u ahayd saxaafadda caalamka waxaana haatan shaki weyn ku gadaaman yahay qorshihii Sacuudigu ay ku doonayeen inay ku yagleelaan oo ku dhisaan magaalada cusub ee casriga ah ee kulaalisay xeebaha badda cas taasoo 330 jeer ka weynaan doonta magaalada New York ee dalka Mareykanka waana magaalada uu bridge la saaraa badda cas dusheedu ku xiriirin lahaa qaaradda Afrika waana magaalada loo habeenayo ganacsiga caalamiga ah ee ay isugu iman lahaayeen maalgashadayaasha dunidu maalgashadayaasha oo qaaradda Afrika ka dhigan lahaa halka ay maalkooda gelin lahaayeen waana magaalada masaafadeedu la ekaan doonto 16400 kilomitir oo isku weera iyadoo noqonaysa mid ka mid ah magaalooyinka ugu ballaaran dunida taasoo 100% ku shaqeynaysa tamarta la cusboonaysiin karo jariirada Business Insider oo warbixin ka samaysay arintani waxa ay leedahay waxa jira tartan heer gobola iyo mid caalami ah kuwaasoo loogu jiro sidii looga faa'iideysan lahaa mantaqada geeska Afrika oo leh istiraatiijiyad dhuleed oo muhiim u ah isku xidhka dunida waana mantaqada isku xidha badda cas iyo badweynta Hindiya waana mantaqada uu ku yaalo marinka Bab el-Mandab oo ay maalin walba ka gudbaan 5 milyan oo foosto oo shidaala Sacuudigu haatan waxa kaloo ay mashaariic ka wadaan dalka Koonfur Afrika waana mashaariicda ku kacaysa 10 bilyan ee dollar waxaana ay maalgashi ku sameeyeen dekedaha dalalka Afrika qaarkood waxaana ay wadamo kale oo Suudaan la mid tahay ka wadaan mashaariicda maalgashi ee cunto soo saarka kuwaasoo lagu xaqiijinayo qorshayaasha mustaqbalka ee ku saabsan sidii loo heli lahaa cunto ku filan aadamaha haddaba haddii ay caqabado ku yimaadaan hirgelinta magaalada casriga ee Sacuudiga waxaa suuragal ah inay Afrikana weydo dunidii maalgashadayaasha ahaa ee duleedka qaaradda soo degi lahaa waana xilli dunida bariga iyo galbeedka dunidu ay dagaal dhanka maalgashiga Afrika ah ku jiraan maalinba taxigtana ay banaanka u soo baxayso sidii ay labada dhinac isaga soo horjeedaan gudaha Afrika waana iska soo horjeedka mararka qaarkood keeni kara isbedelada hogaamineed ee dawladaha qaarkood